السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha dhammaantiin waa idin salaamay ustaad cumar iyo dhammaan walaalaha kale inagu xidhan ee barnaamijka la soo socday iyo kuwa caawa ku cusub waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. barnaamijkeeni waxaynu kusoo jirnay aynu ka sheekeynay oo islaamka iyo aadamaha la magac baxay. barnaamijkeenaasi oo imika ahaan inooga furan meesha ama aaladan tiktokta waxaynu kaga soo hadalnay oo maanta saddex buu inoo yahay barnaamijkeena weygii ama aan idhaahdo episodekii saddexaad, kaasoo aynu ku madlannahay inaynu ka hadalno abuuritaanka adduunka iyo jiritaanka ilaahay. hore waxaynu uga soo hadalnay jiritaanka ilaahay fidra ahaan, in ilaahay jiritaankiisu yahay mid ku dhex abuuran bini-aadamka oo bini-aadamku uu ku dhasho isagoo u laab xaadhan inuu rumeeyo jiritaanka ilaahay iyo aakhiro. taasaynu caddayn ahaan usoo adeegsanay xadiiskii nabiga calai slat slaam, maa min mawluudin ilaa wayulad cala alfitra, in maaragtay uu ilmo kasta soo dhashaaba uu ku dhasho fidrada oo ay ka mid tahay waxyaabaha aynu soo sheegnay rumaynta ilaahay iyo aakhiraba. waxaynu kaloo soo daliishanay culamo sayniseed iyo saynisyahano baxdiyo iyo abxaad ku sameeyey sida Oxford Society oo 2011 Oxford Society of Anthropology 2011 iyaguna ku sameeyey baadhis cross cultural oo ummadaha kala dhaqanka duwan ah iyo dadkaasi wadanada kala duwan ay ku kala sameeyeen, kuna soo ogaadeen isla natiijadan ah in bini-aadamku fidra ahaan uu ku dhex abuuran tahay inuu rumeeyo ilaahay. waxaynu kasoo hadalnay Dr. Olivera Petrovich oo iyaduna diraasad ku samaysay ubad, iyaduna soo gaadhay conclusionka iyo natiijada laftigeeda. taa markaynu ka nimidnay jiritaanka ilaahay fidra ahaan, waxaynu ka hadalnay caqliga iyo jiritaanka ilaahay. waxaynu nidhi ilxaadku waa shayga keliya haddii la caddayn karo, sida keliya lagu caddayn karaay ay tahay mar inuu noqdo been. yacni caqliga waxaynu nidhi maskaxda ma aha, caqliga waxaynu nidhi waana inuu noqdaa mid xor ah oo wax reason gareeya, maadaama maskaxdu ay tahay matter iyo material maada ah una hogaansan sharciyada physics-ka. sharciyada physics-kuna waxa weeyaan reactionna bay kala hagaan, waxayna kugu hagaan deterministic result iyo natiijo go-an, kamana bixaysid xayndaabkaasi xeerashaasi ku dejiyeen. marka xorriyad ma lihid. xorriyad haddii aanad lahayna fikirna ma qaadan kartid, fikirna waxa weeyaan maaragtay kama tegi kartid, waayo waad qasban tahay. marka waxaynu nidhi haddii uu ilxaadku run yahay dee caalamkaa unbaa la joogaa wada materialistic ee deterministiga ah. haddii taa la joogana fikirna lama soo bandhigi karo. waxaa la sameynayay ma ahaba reasoning wax lagu kala xulanayo la sababeynaye, waxaa la sameynaya maxaa nidhi waa falgal sida aaladaha ah. aaladu reaction bay samaysaa ma samayso reasoning. haddii marka aynu nahay aalado sida uu ilxaadku uu qabo materialistic atheismku, dabadeed dee waxa weeyaan lama caddayn karayo ilxaadka, fikirna lama difaacan karayo. sida keliya ilxaadka lagu caddayn kari waa in la qiro inuuna caqligu ahayn shay maadiya oo madax bannaan oo xoro ka madax bannaan xeerasha physics-ka. taa haddii la qirana atheismkii baa meesha ka baxayo. waxaad qiraysaa inaynu nahay material un ma ahayn, inay jirto wax aan maadi ahayn oo reasoning samayn karaya sida caqliga. waxaynu sidoo kale kasoo hadalnay caqliga iyo imaatinkiisa iyo inuu mudnaado isku hadlayn oo nolosha uu inoo hago oo aynu ku go-aan qaadano sidaa u qadarina. caqliga waa mid maaragtay iyadu waa mid iyadoo aan daruuro ahaan ka hadhaynin inaad rumayso inuu caqligan, yani sida keliya caqligani qiimo ku yeelanaya waa inaad qirto inuu ka imiday meel taqaano waxa ay rabto, meel caqli leh sida allah subxaanahu watacaala, aanad se odhan sida dabiicadda oo kale. marka inaga nidhi taasina waxa weeyaan inaad tiraahdo isgadgadiska cimilooyinka iyo kuwaasi ayaa igu deeqay caqli, iyo dabiicadda aan caqliga lahayn baa caqli igu deeqday. waa mid runtii ma aragtay caqligii ka dilasa kalsoonidii iyo misdaaqiyadii. wanaaga hore nooga soo hadlayo xataa Darwin laftigiisu, Darwin's doubt baa la dhahdaa, waa uu ka shakiyay caqligiisa isgadgadiskan ukaska aan ahayne ujeedada aan ahayne xaadidka ku imiday sideen u aaminaa buu yidhi. waana ta ka dhalanaysa runtii, waana sidii anigoo ku idhaahda haddii maanta aniga sheekh cumar aynu isweydiino wadadeebaa muqdisho loo maraa, oo sheekh cumar iyo anigoo aan isku qabsano halkeebaa muqdisho loo maraa, dabadeed ma naga suurowdaa in ma aragtay intoo aan qaadno isbedbedelaya iyo radiationka iyo evolutionary changekaasi dabeecadda wadda ee ah mid indhala haddii la idhaahdo uu ka imiday, dee waa kama duwana biyahaas la daadiyey ee aad rabto inaad ku gaadho meel ka mid a magaalooyinka adduunka. waxaynu ka hadalnay in haddii la rabo in yacni evidence-ka iyo caddeymaha ay badanaa atheisku raadiyaan waa kuwa xisiya,
kuwaasoo aynu soo sheegnay inuu xiska iyo ma aragtay kuwa dareenkii ay yihiin kuwo kooban. sidoo kale empirical science-kuna uu iyagun wax yar ka xoog weyn yahay, laakiin adilada caqliga ay yihiin kuwo intaba ka wada xoog weyn. oo inaga nidhi xisku waa kooban yahay. waxa ugu fudud tusaale idinku siin karaana waa edceedaasi time iyo intaad arkaysa edceedu ma leeka oo ishaada wax yaroo baabacadaad ku qarin karasay kula tahay. runtii dhulka 1 milyan oo jeer bay ka weyn tahay dhulkan aynu ku noolnahay. edceedaasi barta aad ku arkayso ee ay taagan tahay ma aha barta ay taagan tahay haddada aad arkayso, waa bartii ay taagnayd maxay 8 daqiiqo ka hor. so waqti ahaan iyo fogaan ahaanba way ku limit garaysay, waxay kaa siisay sawir been ah. edceedu halkii ay joogtay iyo goortii ay joogtayba waxay kaa siisay yacni sawir beenaad iyo xataa xajmigii edceeda. marka xiska iyo ma aragtay dareemayaashu si fudud baa lagu qaayimi karaa. dawooyin iyo maandooriyana haddaad isticmaasho xisku waa kaa tegayaaba. marka xisku waa wax yar oo kooban. waxaynu ka hadalnay sidoo kale science-kuna inuu laftigiisu uu leeyahay limitationskiisa oo wax ka baxsan adduunyada ma baari karo. adduunyaduna waxa weeyaan maanta aynu baran doonaa outside the universe. science-ku wax kama baari karo. waxa uuna ku shaqeeyaa baynu nidhi causality-ga oo ah sidii uu Francis Bacon yidhi cause and effect relationship ayaa uu science-ku baadhaa. arrin dhacday iyo sababtii ay ku dhacday, xidhiirka ka dhexeeya natiijada iyo sababta ayaa uu science-ku baadhaa. haddaba maanta markaynu ka hadlayno adduunka ama universe-ka iyo abuuritaankiisa, intaasoo qodobna aynu soo xasuusinay. waxaa muhiima waxaynu ka hadlaynaa aragtidan ah atheism-ka iyo theism-ka. labaduba waa labo mowqif. labada mowqifba waxay ka sheegayaan oo ay doonayaan amaba aan idhaahdo ay ka tafsiil bixinayaan, ka yacni sharaxayaan xaqiiqada iyo waaqica reality-ga ah. labaduba waxay doonayaan inay wax ka idhaahdaan reality-gan inagu haraareysan iyo waaqican inagu haraareysan. so markaan idhaahdo theist, si ka duwan baan adduunyadii iyo ma aragtay wax alla waxa igu haraareysan oo dhan anigana igu daro sida aan u qeexayo way ka duwan tahay marka aan sheeganayo atheist. markaan theist leeyahay waxa aan leeyahay adduunyadan iyo aniga iyo koonkan dhanba waxa uumay ilaah caqli leh oo xakiima oo xikmadiisa inagu uumay, sameeyeyna awoodna u leh. halka haddii maaragtay atheist aan istaago positionkaasi, isla reality-gaasi aan anigu ku describe gareeyay jiritaanka ilaahay, laga rabo isaga inuu qeexo sida ay waxaan oo dhani ay u jiri karaan, ay u suuro gali karaan iyadoo oo meesha ay ka maqan tahay abuure ama ilaah. marka labada hadal labada mowqif ee ah theist iyo atheist, labadaba waa labo wax ka sheegaya xaqiiqadii iyo waaqica aynu la noolnahay. waaqiceenina inagoo indhaynayna oo maankeena iyo wax walba kaashanayna aan isla eegno labadeena keeba ay support garaynayna. wa inna aw iyaakum la calaa hudan aw fi dalaalin mubiin. adduunku waxa weeyaan mid ka mid a aayaadka ilaahay ee ugu waaweyn, waana su-aasha koowaad ee dhalanaysa oo waaqican inagu haraareysan waa universe-kii oo aan inaguna ka mid nahay. marka su-aasha dhalanaysa waxa weeyaan markaynu nidhaahno ilaahay jiritaankiisa ama lidka oo ah atheism, labadaba markaynu nidhaahno waxa ina face garaynaya amaba inaga hor imanaya oo u baahan tafsiir waaqican inagu haraareysan. sidee baynu u fasiri karnaa? haddii aad leedahay ilaahay ma jirana, sidee baad u fasiri kartaa imaatinkiisii, joogtayntiisii iyo jiritaankiisii, waxaasoo dhanba iyo asalkiisiiba sidee baad u fasiri kartaa? haddii aan leeyahay ilaahay baa jirana, waxa weeyaan sidee ayaan u fasiri karaa jiritaanka ilaahay iyo waaqican inagu haraareysan? labada jeerba tafsiir baa labada qof laga rabaa. cilmigan lagu diraaseeyo barashada adduunka waxaa la dhahdaa cosmology. waxa uu ka imiday ereyga ingiriishka ah ee cosmos, oo isaguna ka imiday ereyga latiniga ah oo ma aragtay uu coin gareeyay ama markii ugu horreysay uu sameeyey Pythagoras, ninkii la odhanayay mathematiciankii. marka cosmology-ga oo ah diraasada adduunyadan ama universe-kan oo cosmos-kan barashadiisa lagu barto cilmigaasi, in badan waxaa ka buuxa soft science waxa loo yaqaano ama pseudo science oo ah science khuraafaad ah. waxyaabo badan oo aan run ahayn, waaqicana haysan ayaa in badan ka dhex buuxa marka ay noqoto science-ka ku saabsan originka universe-ka ee cosmology-ga. waxyaabahaasi waa isla arki doonaa. isaga laftigiisu cilmigani waxa uu leeyahay limitations, xuduud aanu ka gudbi karin. sidoo kale kuwaasoo ma aragtay caqabad ku noqonaya xataa inuu in badan sifaad iyo ma aragtay descriptions tam ah inaga siiyo universe-kan iyo adduunyadan. waanan u dhaadhici doonaa had iyo jeerna markaa sida uu ku salaysan yahay markaynu eegno cilmigan
si kastoo ma aragtay aynu cilmigan horumar uga gaadhno had iyo jeer waxaa iman doona gaab iyo dalool marka aynu fahno dabeecadda sayniska uu u shaqeeyo wax u baadho iyo adduunyada universe-ka ah ee aynu rabno inaynu wax ku ogaano labadaaba markaynu isla ogaano waxaa dhacaysa in had iyo jeer aynu filan karno inuu iman doono gaab macrifi ah ama dalool xagga aqooneed ah ama yacni waxba had iyo jeer inaga qarsoonaan doona si guudna waan filanayaayo gunta inaynu wax uga gaari karin inaga oo saynis qura adeegsanayno waxyaabaha uu cilmigani ku salaysan yahay haddii aan u galo si aynu u kala saari karno horta wixii saynis iyo waxaan saynis ahayn si aynu u kala saari karno waxyaabo badan oo magaca sayniseed lagu qariyo ayaa jirta oo cilmiga lasoo hoosgeliyo amaba lagu soo hoos qariyo laakiin aan ahayn runtii saynis marka loo barbardhigo dabeecadda sayniska laga rabo inaa uu noqdo sayniska waxaynu ka rabnaa inaa uu wax inoo tijaabin karo uuna toos ugu salaysnaan karo principlekii uu Karl Popper uu dhigay ee la idhaahdo falsifiability principle sidoo kale culamaa ulmuslimiin ibn al-haytham oo kaliya waa uu lahaa nidaam sistemeed oo uu ma aragtay experimentationka iyo tijaabooyinka sayniseed lagu baari karo marka falsifiability principle baa la idhahdaa waxa weeyaan in wixii la beenin karo haddii ma aragtay waxaan la imid aragtidaa hebel iyo hebel sidaa odhanaysa aragtidaydaasi waxay been noqonaysaa oo ay jabaysaa haddii qaanuunka noocaa la helo ama dhacdada noocaa la helo so waxaa la dhahdaa falsifiability principle baa la dhahdaa mabda-aabuu saynisku ku salaysan yahay in wixii la beenin karo lana sugi karo sidee lagu sugi karaa lagu beenin karaa iyadoo la samayn karo tijaabo oo experimentation lagu samayn karo wixii ma aragtay aan la tijaabin karin ee sayniskaasi xayndaabkiisa dabcan waa wax ka baxsan wuxuuna noqonayaa in qaab kale loo diraaseeyo oo saynisku ma aha habka kaliya ee aqoon lagu helo ama macrifo lagu kasbado ma aha saynisku masaadirul macrifa way badan yihiin marka in hab kale lagu diraaseeyo noqonaysa laakiin markaad leedahay waa scientific theory waxaan wataa waa inay noqotaayo hoos gali kartaa principleskan ama mabda-an falsifiability principle ee Karl Popper la leeyahay sidoo kale waxaa jirta waxyaabaha uu ku salaysan yahay cilmigani oo aynu nidhi waxa weeyaan mid runtii waxyaabo badan ay yihiin assumptions ama waxyaabo hor iyo horaan la aamino muqadime ahaan inta aan la cadaynin la sugin waxyaabahaas oo dhan waxaa la isku idhaahdaa hypothetical deductivism marka waxa weeyaan waa in waxyaabihii aanad arkayna kaa qarsoonaayee qeybkii so waxa weeyaan inaad yacni waxyaabihii qeybkii ee kaa qarsoonaa aad uga qiyaas qaadato in the form of calculations iyo mathematics inaad yacni waxyaabihii aanad ogeyn aad qiyaas ahaan iyo xisaab ahaan aad ku qiyaasato adigoo adeegsanaya dabcan maskaxdaada so waxyaabo badan oo runtii doodo badan dhaliyay baa ka dhalatay oo xataa marar badan xataa waxyaabaha lagu dacayaday culimadaas waxaa kamid ah space.com oo kale websitekaas wuxuu soo dhigay philosophers falsafadyahanadu waxay isweydiiyaan buu yidhi ama want to know waxay rabaan inay ogaadaan how physicists believe theories they can't prove sababta ay physicsyahanadu u rumaysan yihiin aragtiyo ama theories kuwaasoo ayna caddayn karin waxa aan la caddayn karin lana beenin karinna maxaynu nidhi uu ka baxaya xayndaabkii sayniska marka arrintan maxaa ku dhaliyay waxaa ku dhaliyay waxyaabo badan oo sayniska ka mid ah khaasatan cosmology-ga ah waxaa ku jirta in ma aragtay lagu saleeyo amaba lagu saleeyo muqadimaad aan iyaga laftigooga la caddayn kuwaas waxaa ka mid ah in hor iyo horaanta la rumeeyo oo iimaan yacni la rumeeyo in universe-kan uu ku salaysan yahay mechanismska iyo qaabka uu adduunkeena u shaqeeyo ay yihiin kuwo ilaa weligood uu sidaa un usoo shaqayn jiray kamana warhayno mana caddayn karno iyada laftigeeda waayo dib waqtigeena uma celin karno mana ogaan karno sida uu adduunyadu inay isla same loskan iyo mechanismskan inay kusoo shaqayn jirtay marka waa mid imika maadaama aynu xaadirka noolnaho sidaan u arkayno si uu saynisku usii hana qaado wax loo baari karo waxa oo retrospective dibna yacni wax looga ogaan karo waxa soo socdana mararka qaar lagu saadaalin karo xisaabaad iyo xeerar lagala soo bixi karo waxa la assume gareeyay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay uniformitarianism ayaa la dhahdaa in same mechanismskani ay yihiin ilaa bilowgii sidaa un inay u shaqeeyo in adduunyada iyo xeerashiisani ay sidaa un u shaqeeyaan xisaab ahaantooda iyo sida ay yihiinba inay sidaa un ahayd ilaa iyo weligeed so kuwaas ayaa ka mid a waxyaabaha yacni uu ku dhisan yahay cilmigani sidoo kale taana caddayn uma hayno in universeku markuu tusaale ahaan uu marayay xilligaa iyo xilligaasi mid ka mid a marxaladaha uu soo maray
ama qawaanintani isbedeleen oo sidan ka duwanayeen ma caddayn karno mana sugi karno laakiin dhammaan xisaabaadka aynu adeegsano waxay ku salaysan yihiin inaga oo iimaansan oo rumaysan inayna xeerashani ayna isbedelin oo ay sidaas uun soo ahaan jireen marka waxyaabaha kamid ah waa uniformitarianism baa taas sidoo kale waxyaabo badan oo uu ku salaysan yahay cilmigani oo ay culimadaasi physics-ka diraaseeyay ay kaga goon gaadhaan amaba ay isku amaanaan waxaa kamid ah inay rumeeyaan amaba ay idhaahdaan calculationskan aynu sameynaynaa waa laazim ama waa kuwo ay ka dhalanayso inay ka turjumaan reflect garayaan reality-gii waaqici so xisaabaad baan isku geysanayaa anigoo isticmaalaya xeerashaas oo dhan waxaas oo dhan iyo calculationska iyo qawaaciddaasi xisaabeed markaan isku geeyo iyaga wixii ay ii soo saartaa waa wax go-aaminaya waaqicu sida uu yahay yacni waxaa ii soo baxday in adduunku uu yahay afargees marka xisaabaadkii markaan isku geeyo xisaab ahaan baan saxsana marka adduunyadu waa afargees marka maxaa sameynayaa wixii maskaxdeeda exercise-kii aan kasoo sameeyey ayaan ku dabaqayaa waaqici so calculationsku inay reflect garayaan reality-gu iyaduna waa mid uu ku salaysan yahay cilmigan cosmology-ga taasina runtii sax ma aha oo xisaabtu waa maxay waa language of science waa luqadda science-ka af soomaaliga waa luqad haddii aan idhaahdo cumar london buu joogaa dee luqad run iyo beenba waa lagu sheegaa haddaan idhaahdo london buu joogaa oo waaqiciina uu ka markhaati kacayo inuu cumar london joogo then I am right markaa waxaan idhi waa hadal saxa laakiin haddii aan idhaahdo cumar wuxuu joogaa baki ama cumar waxa uu joogaa kiev waaqicii iyo run ahaantiina aanu sidaas ahayn marka hadalka iga soo baxay oo ah language oo luqada waxa aan laakiinse ku idhi waa wax aan waaqicii waafaqsanayn marka waa wax been oo waaqicii baa beeninaya marka language-ku maadaama yahay mathsku maadaama tahay science language waa mid aad u adeegsan karto inaad wax xaqiiqana ku describe garayso ku fasirto wax xaqiiqa aad shay yacni adduun iyo xaqiiqadiibaad qaab saxa ugu qeexi karta xisaab adigoo adeegsanaya isla xisaab adigoo adeegsanayana qaabkii qaab ka duwan oo beena ayaad u sheegi kartaa marka calculations ma aha kuwa had iyo jeer reflect gareeya reality-ga waxyaaba badan ay adeegsadaan waxaa kamid ah aesthetic value-ga ama quruxda uu leeyahay iyo soo jiidashada uu leeyahay calculationskaaga iyo xisaabaadkaagu waxyaabaha ay adeegsadaan bay kamid tahay sheekh cumar su-aal bay weydiinaysa okay ha sax sax okay good wax dhiba ma jirto marka inagoo intaasi isla og waxyaabaha badan oo markaa cilmigan kasoo baxa waxay noqdaan kuwo la dhahdo soft science ama pseudo science kuwaasi waxaa kamid ah aragtiyooyin ay kamid yihiin sida string theory aragtida la dhahdo string theory waa aragti sida strings waxaa la dhahdaa xadhkaha sida tusaale gitaarka o kale waxyaabaha uu leeleeyahay baa la dhahdaa so in adduunyadu ay saas oo kale u samaysantaho particlesku ay saameyntaas oo kale ay isku leeyihiin oo sidaas isku jiijiidanayaan so aragtidan string theory iyadu waxa weeyaan mid dabcan runtii waxay leedahay waa millions of true calculations bay leedahay yani xisaabaad xaqiiq ah laakiin malaayiin dariiqo oo xisaab ah laakiin oo dhammaantood ka sheekeynaya qaabka ay adduunyadu strings u ahaan karto ama adduunyadu ay u noqon karto mid ishaysata oo isku xidhxidhan so aragtidaasi waxyaabo badan oo xisaab ahaan yani millions baa lagu leeyahy malaayiin oo true calculations xisaab ahaan saxa oo xeerashii xisaabta aan dhinacna u seegayn oo dhinacna u jabinayn laakiin adduunyadu malaayiin wey uma samaysnay hal dariiqa bay u samaysan tahay marka there can only be one that's true intaasoo milyan oo dariiqo oo ay adduunyada u sifaynayso aragtidaasi oo xisaab ahaan saxa midkood unbaa adduunyada iyo waaqicii sax noqon karaysa waynaga nidhana xisaabtu waa luqadna runna waa lagu sheegaa beenna waa lagu sheegaa marka malaayiinta xisaabood dee adduunyada maadaamaynu malaayiin hab aynay u jirin midkood unbaa si saxa u sheegaysa midkood unbaa xaqiiq ah dhammaantood xisaab ahaan waa sax laakiin markay ontological reality-gii loo yimaado iyo waaqicii jiritaanka marka loo imaado midkood unbaa dee laga yaabaa inay si saxa u reflect garayso inta kale marka maxay noqonaysaa been laakiin hadal ahaan maxay sax ah oo eega hadalkayga ahaa cumar london buu joogaa iyo cumar wuxuu joogaa kiev waa laba hadal oo kale soo horjeeda laakiin luqa ahaan waa laba hadal oo jira oo luqad ahaan luqad soomaali la yidhaahdo ku jira la xeerasheedii buuxinaya lana fahmi karo laakiin midna waaqicaa beeniye midna waaqica ayaa sugay so saas bay ku kala duwan yihiin marka kuwani malaayiinkuba waa xisaab ahaan waa sax malaayiinkuba xisaab ahaan waa wada sax laakiin maxaa noqon karta only one
ayuunba run noqon karta. ta kale ee iyadana maaragtay inagu keeni karta in universe-keenan aynana wax badan si fuliya macluumaad dhammaystiran aynana uga helin waxa weeyaan cilmigeena ku baadhina oo ah science-ka. science-ku habka uu wax ku baadhiyo philosophy of science waxa weeyaan mid ku salaysan waxaa la idhaahdo inductive reasoning. waxa weeyaan tusaale haddii aan idin siiyo inductionka maanta horena waa bixiyaa malaynayaa salad tufaaxyo ku jiraan 100 xabo ayaa waxa aan ka soo saaray 99 xabo oo cascas. kadib ta boqolaad ayaa la weydiiyey imisay noqon kartaa. ta boqolaad waxay noqon kartaa iyaduna casaan haddii aan idhaahdo waayo intii ugu badnayd ee soo arkay maxay ahayd casaan. so marka iyadana chance fiican baan haystaayo waan u dhowahay inaan runta sheego haddii aan idhaahdo casaan. waan ka dhowahay haddii ay ahaan lahayd inta lasoo saaray ay ahaan lahayd 90 tufaax iyo markaan 99 hayo dee 90 tufaax markaan joogo kalsooni saasa ma haysto. kasoo qaad tufaaxii koowaad baan saaray tufaaxii koowaad baa casaan noqdo waxa la weydiiyey 99 ku hadhay imisay noqon kartaa. haddaan idhaahdo akhtar iyo haddaan idhaahdo casaan labaduba waa laba suurtagal oo bannaan laakiinse haddii ma aragtay aan 50 tufaaxa soo saaray 50 cas yihiin 50ka kale la weydiiyey la idhaahdo ma akhtar waa soo casaan inaan idhaahdo waa casaan iyo inaan idhaahdo waa akhtar weli waa wax isleeg. markaan laakiinse 70% marayan 70 xabo soo saaro cascas la weydiiyey ta ku xigtay imisay noqon karaysaa dee inaan idhaahdo casaan waa mid iyadu aad ii xigto ii badinaysa. yani had iyo jeer waxa uu go-aan ku qaataa sayniskaasi hadba inta observation iyo data diyaar u ah ee available u ah. ariga dhinacaygan degan degmooyinka Soomaaliya badana qoortooda waa madowdahay. so aniga oo intaas uun arkay haddii aan ku go-aan qaato oon idhaahdo dhammaan waxa ari jira adduunka jira waa wada qoor madow yihiin conclusionka anigoo gaadhay bay ka dhigantahay. maxaan conclusionka ay natiijada kusoo gaadhay waxa aan ku gaadhay wixii ii muuqday ee aan arkayay ee aan anigu study iyo maaragtay diraasaad ku sameeyey oo ahaa intaa ii muuqatay. haddii intaasi ay kala duwanaan lahaydna maxaan odhan lahaa ariga waxa loo yaqaanay waa marna wuu qoor madoogaan kara marna wuu qoor casaan kara. laakiin iminka maadaama koobanahay oo aan degmo gooniya ku koobanahay degmadaana intaan arkayay uu kalarka uu yahay go-aankayga aan ku qaatay muxuu yahay mid limit garaysan oo maxaa beenin karaya marka lagu arko Sacuudi Arabiya mid qoracas. so science had iyo jeerba kolba inta uu macluumaad hayo ayaa uu ku go-aan qaataa. taas baa la yiraahdaa inductive reasoning. marka tijaabo sayniseed markaan sameynayo ama diraasad sayniseed dawo baan maanta soo saaray waxaan rabaa chain wareerka inay dawadani daweyn karto ama coronavirus-ka ayay dawo u tahay baan idhi. dawadaasi waxa aan ku sameeyey 5 qof baan soo qaaday 5taa qof baan ku tijaabiyey. saaxiibka isla dawadii wuxuu qaaday wuxuu ku tijaabiyey 1 milyan oo qof. midkee ayaa natiijadii ugu dambeyn waxa soo baxday isagu 1 milyanka uu ku sameeyey waxa ka soo baxday inayna dawadani waxba tar ka lahayn corona. aniga 5tii qof aan ku sameeyey waxa ka soo baxday inay dawadani daaweynayso. labadaa midkee saxsan waxa la qaadanayaa saynis ahaan isaga waayo isagu macluumaadkii imsa dad ah ayaa ma aragtay uu tijaabadiisii mariyay malaayiin qof ayaa u mariyay aniguna 5 qof. yacni wuu iga dhaato badan yahay wuu iga tijaabo badan yahay wuu iga baxfiyo baadhis badan yahay. marka waxa la wixii observationskiisi maadaama ay iga badan yihiin kuwayguna ay kooban yihiin kiisa ayaa iga reliable kiisa ayaa isku hadlayn mudan oo lagu go-aan qaadan karaya marka kayga loo barbar dhigo. marka saynisku saas buu ku shaqeeya. haddaba waxa la mid garanaysa waxa weeyaan inagu maynu arag adduunyo samaysmaysa dhacdadan big bang ma aha to aynu dib lab ugu soo samayn karano dib u soo tijaabin karano. waxyaabo badan oo sayniska kamid ah dib baynu lab ugu celin karaynaa dib baynu u tijaabin karaynaa dib baynu u samayn karaynaa. intaasoo jeer oo tijaabo ayaynu ku samayn karaynaa. haddii la isku daro ma aragtay sodium iyo chlorine milix baa soo baxa haddii aan idhaahdo dee wax lab loo bandhigi karay weeyaan. maanta milix soo saartay haddana dib baynu u tijaabinna milix baa soo bixi. haddana nin kaleba odhanaya in malaha ma soo saarto inaga shakiya hoo tijaabi baan leenahay wuu qaadayaa lab buu la tegayaa milix baa isagana usoo baxaysa. hydrogen iyo oxygen marka la isku geeyo biyo soo saaraan baanu nidhi okay lab baynu tagnay hydrogen iyo oxygen baan isku geynay waxay noo soo baxay biyo. dib haddana waxaynu maalintii kale biyo ay noo soo baxay. nin kaleba inaga shakiyay oo ka imid Afrika wuxuu yiri wixiinan ma rumaysanayo hoobaanu ka nidhi waatan hydrogen iyo oxygen isku dar lab baa uu dib ula tagay isaguna 2 sano kadib markaynu inagu soo saarnay kadib dib uu ugu celiyay isla intiiba u soo baxay. laakiin dhacdadan big bang ma aha maanta intaynu universe-ka ma qaadi karno dib haddana uguma celin karno min al-cadam dabadeedna ma aragtay big bang baa dhacday halkaas
calculationskii wixii oo dhan intaynu ka qorano haddana aynu barbar dhigayno mar labaad markaynu ku celinay haddana mar saddexaad markaynu ku celinay maxaa natiijooyin kala duwan maxaa soo kala baxbaxay ku celcelintaa badan maxay inaga caawisaa inuu qaladka yaraado saxda aynu u dhawaano marka marka aad tijaabadii badiso marka kalsoonidii la siinayay ee mudnaantii ay sii kordhayso marka maadaama uu ahaa hal dhacdo oo dibna loo samayn karaynin waxaynu ku qasbannahay inaynu inta aynu iminka observationskaas iyo waxa aynu ku aragno mooyaane inaynanu had iyo jeer marka maadaama sayniskiina uu qaabka ku shaqeeyo macluumaadku markay sii bataana kalsoonidoodii ay sii badanayso oo aynu nidhi waa induction dee marka uu yaraado inductionkeeni iyo weak induction uu noqdo mid ma aragtay macluumaadkii ay yaryihiin dee nataa'ijtii way ka kalsooni yaraanaysaa sida tusaale ahaan hydrogen iyo oxygen oo 1 milyan oo jeer la isku dari karayo iyo dhacdada big bang oo hal mar dhacday oo halkaa marna aynanu inagu u joogin ma ashaatum khalqa asamaawaati wal-ard walaa khalqa anfusihim inagu umaynu joogin markhaatina kamaynu ahayn soo halkaa dhacdo iyo dhacdada aynu 10 milyan ee jeer aynu samayn karayno macluumaad iyo qiyaas ahaan cilmigu waxa uu ka bixin karayo marka loo eego dabeecadda iyo falsafada uu cilmigu ku salaysan yahay oo ah in hadba uu sii saxsan yahay marka uu macluumaadkiisu uu sii kordho taasoo iyadan ku salaysan marka uu tijaabadiisu sii badato marka maadaama inaynu dhacdadii dib u tijaabin karayn had iyo jeer macluumaadkeenaasi gaab ayaa ku jiraya marka waa mid aynu filan karayno inaa uu gaab imanayo maadaama ayna jirin sidoo kale adduunyo labaad ama universe kale oo aynu hayno oo laab inoogu jiro oo aynu barbar dhigayno keena isbarbardhiguna runtii wuxuu saamaxaa in macluumaad badani uu aynu helno macluumaad kala duwan macluumaadka kala duwan oo isaguna wax badan ku kordhin kara wixii aynu haysanay marka taasi waa arrinta ku saabsan يعني universe كان iyo creation ka aynu imika ka hadlaynay haddii aan pointiga kusii socdo string theory maxaynu nidhi millions of calculations bay leedahay laakiin string theory waxa ay noqotay iyada mid ka mid a waxyaabaha pseudo science-ka ah dhammaantoodna sax ma wada noqon karaan baynu nidhi doo calculation ahaan ay wada sax yihiin string theory culimmadu markii ay dib xataa u diraaseeyeen waxyaabaha uga soo baxday waxaa ka mid ah Stephen Hawking oo kale waxa uu ku leeyahay string theory suffered another awkward issue marka buugiisa the grand design page 174 wuxuu ku leeyahay string theory suffered from another awkward issue wuxuu ku leeyahay there appear to be at least 5 different theories and millions of ways the extra dimensions could be called up waa intaan iminka idiin sheegay ilaa 5 different theories ilaa 5 theory ba iyada soo hoos gala 5ta theoryna maxay wataan malaayiin ways of extra dimensions could be called up وملايين calculation idin sheegay oo dhamaantoodba dimensionskan iyo waxyaabahan inagu wada xaraaraysan oo dhan qaab milyan oo kala duwan iyaguna u kala sheegaya laakiin si qaab malaayiin oo kala duwan ma kala ahe hal reality iyo hal waaqic ayay intaasoo milyan oo ways ay isku dayayaan inay u describe gareeyaan intuba run ma sheegi karayaan sidoo kale wuxuu leeyahay isagoo ka hadlaya oo sii socda aragtidan string theory buugiisa la dhaahdo Brief History of Time chapterka 2 waxa uu ku sheegayaa both theories marka wuxuu isbarbardhigaya dabcan wuxuu leeyahay wuxuu ka sheekeynayaa Stephen Hawking aragtida odhanaysay yani dadku waxaa jirtay berigii hore ama Greek iyo meelaha waxay aaminsanaayeen in adduunka uu wado oo uu xambaarsan yahay diinba adduunyada dhan xambaarsan waxay ahayd mid shaa'ic ah oo dad badan ay aaminsanaayeen taasi maanta waxaynu leenahay waa been oo adduunyadii dee waxa weeyaan diinba xambaarsan maanta cid saynisyahan oo odhanaysa ma jirto isla aragtidan string theory aynu ka hadlaynaana taa unbay la mid tahay sawaabisaa maxayna kala mid tahay wuxuu leeyahay both theories labada theoryba lack observational evidence labaduba ma wataan adilo la arkay oo muuqda oo observationa ma wataan no one has ever seen a giant tortoise marka cidimo aysan arag buu leeyahay diin weyn sida ayna cidna u arag diin weyn with the earth on its back oo dhabarka ku xambaarsan adduunyadeenii ama earthkii dhulkeenii ku xambaarsan but then sidoo kale lama arag buu yiri sidaas la mid ah no one has seen a super string either cid sidoo kale aragti ma jirto string ama super string either tiyan imika idin sheegay string theory marka labaduba maadaama ka siman yihiin observational evidence inay labaduba ka maqan yihiin oo tanna aan la arag labada maxaa midna loo yiri waa scientific theory oo theory dhinaca dambe looga daray midna loo yiri waa khuraafad waxa loo kala yiri labada qof ee soo kala saareen buu midna xisaab ka shaqeyn karayay midna waxa ahaa nin baadiye oo kaymaha jooga marka difference-ka u dhaxeeyay labada qof ee kala hadlay muxuu ahaa midna degree jaamacadeed buu watay
midna kayn buu ku dhex noolaa laa farq laakiin hadalkooga waa maxay waa same labadubana waa maxay laba kalaam oo faadi ah sida carabta tana kalaam faadi labaduba waxa weeyaa waa laba hadal oo been ah laakiin waxa lagu kala duwan yihiin waa ka idhi kana wuxuu ahaa nin ustaad jaamacadeed oo professor ku magac dheer kan kalena wuxuu ahaa miskiin baadiye ah oo maanta la leeyahay waa jaahil oo jaamacad ma uusan gelin laakiin labaduba qowl siman ayaa kasoo baxo labadaba aan cadayn loo hayn labadubana scientific ahaan markaynu u eegno falsifiability test waa laba ku fashilmay bal xataa scientifically waaba qaldan yihiin ma odhan karnaa waxaa lamid oo taa la wadaagta multiverska aragtida la idhaahdo oo ah universekeenan wuxuu ka mid yahay universeyo badan ama kownan badan oo jira oo aan tiro lahayn taasi waa su-aal iyaduna maaragtay dib usii dhigaysa problemka ina haystee oo ahaa hal adduun ayaanu descriptionkii xaqiiqadiisii aynu isku haysanaa markaa tira malaayiin adduun baa jira iyadana waxa weeyaan waxaad sii adkaysoon explanationkii lagaaga baahna marka all in all aragtida multiversekuna waa la mid alexander flecken aragtidaas wuxuu idhahdaa iyaduna greek mythologyga iyo khuraafaadkii greekii iyo ilaahyadii ay aaminsanaan jireen iyaduna wax ay kaga duwan tahay ma jirto oo waa same oo kii greegaasi la imiday khuraafaadkaasina wuxuu ahaa nin reebaadiye ah ninka tan la imiday haysiinayana waa nin shahaado wata labadubana waxa weeyaan laba shayo qalad ahaan midda kale waa untestable universekeena lagama bixi karo blank sizekana lama dhaafi karo waana xuduud uu saynisku aanu ka gudbi karin waxa hadduuna saynisku tijaabin karinna maxaynu nidhi falsifiability principlekii iyo mabdicii tijaabadu ka baxaya haddii uu ka baxana dee ma noqonayo cilmi muxuu noqonayaa caqiido iyo wax la iska rumaysan yahay oo siyaabo falsafadeed loogu doodi karo laakiin aan hab sayniseed loogu doodi karin oo la odhan karin waa science waxyaabahaas baa la dhahdaa pseudo science ama soft science waxyaaba aan la tijaabin karin waa magaca cilmina waa ay wataan waana la isku soo hoos qariyaa laakiin ma aha cilmi ma aha intaa haddii aan iyaga kaga gudbo markaynu u nimaadno waaqiceenna waxaa jirta adduunyo aynu nidhi waxaa loo baahan yahay inaynu ka bixino sawir ama maaragtay explanation as a theist iyo as an atheist universekaasi markaynu eegno waxaa jirta saddex mid unbaa uu noqon karayaa universekaasi dhammaan optionsko dhan haddii la exhaust gareeyo saddex ba isku soo fadhiisanaya saddexdaas oo ah in uu yahay mid created ah oo la abuuray la sameeyey backup garanayana maaragtay ama taageeraya arrintii diimuhu ay u hadli jireen ta kale waa inuu yahay eternal oo weligiis soo jirayo daa'im oo azali ah ta saddexaad inaa uu isagu isjirsiiyey marka ta saddexaad iyo ma aragtay ta koowaad waxay ku kala duwan yihiin midna isaga iskii ah oo self created weeyaan oo iskiibu isku jirsiiyey midna waxa weeyaan waa la jirsiiyo faacil baa jira ta labaadna maxaynu nidhi waa azali inuu noqdo saddexdaas dhinac uma dhaafto saddexdaa kama bixi karto haddii aynu kala shaandhayno saddexdan haddii aynu kala shaandhayno ta koowaad ee ah in la idhaahdo waa self created ama ma aragtay isagaa is abuuray waa mid ka hor imanaysa iyadu caqliga so waa illogical wax maangala ma aha sidoo kale maxayna maangal ku ahayn waxaynu nidhi caqligu si uu shayga ugu kala saaro maangal iyo mid aan maangal ahayn maxaa uu leeyahay xeerar uu ku kala saaro so xeerashaasi waxaa ka mid a law of non contradiction ama cadamu tanaaqud inay laba shayo isdiidaya caqligu ma wada qaadi karo inaan anigu jiro iyo inaanan jirin hal mar madaxaaga kuma wada kulmi karaan ama waan jiraa ama ma jiro waayo waa laba shayo isku lid ah sidaas darteed waa illogical waana contradiction waxay illogical ku noqoto maxay waa shay isdiidaysa isku diidaysaa waxay isku diidaysaa haddii aan leenahay isaga is abuuray waxaynu shaygu si uu u abuurmo waa inuu jiritaankii ka maqnaado si uu isagu ficilka abuur ula imaado u keensado oo uu isku abuurana dee waa inuu jiraa yacni waa sidai anigoo ku idhaahda anigu waan isdhalay dee si aan u dhasho waa inaanan jirin si ma aragtay aan anigu isku dhalana waa inaan jiraa si aan isku dhali karo so waa arkaysa halkay iska diidayso qof baa is dhalay waxaad ka yeelaysa maaha cidna oo maankaagu ma qaadi karayo oo reasonkuna waxa weeyaan waa inay tahay illogical oo ay tahay contradiction waa shay isdiidaya qof baa is dhalay wax maaragtay meella laga doodi karo ma aha marka sidaas bay la mid tahay in la idhaahdo waa self created iyo wuu is abuuray so markaa si uu abuurka usoo galo waa inuu abuurkii ka maqnaadaa si uu isagu u fuliyo ficilkan uu abuuraya isaga is abuuraya isa sameynaya waa inuu ku jiraa oo uu actively shaqadii uu qabtaa abuurka
marka labada shayna waa laba shay oo isdiidaya marka waa muxaal caqli shaygaasi caqliga ma galayo marka waa impossible wuxuuna la mid yahay square circle yani circle ma aragtay afar dhinac leh ayaa uu la mid yahay ama triangle afar gees leh maaha macquul waxaas wax jiri kara maaha so isaguna taas uu la mid yahay marka ta saddexaad way inaga baxday laba inoo soo hari doona oo caqli ahaan bay ta saddexaad tahay mid muxaal oo isdiidaysa ta kale labada inoo soo hadhay waxa weeyaan in ma aragtay adduunyada ay tahay eternal iyo inay tahay created haddii aynu ka hadalno inay tahay eternal sanadadii hore ama qarnigii 19aad iyo bilowgiisii waxyaabaha lagu hadli jiray ama lagu doodi jiray waxaa kamid ah inuu kownku azali ahaa laakiin doodaasi maanta ma jirto lagumana doodo waana mid ma aragtay runtii ka dhamaatay oo xataa ma garan karo cid aan idin magacaabo oon idin idhaahdo iyada ayaa maanta aaminsan oo aragtidaasi eternal universe-kaasi loogu tagaa ma garanayo ma jirto yani waa inqiraad caadi ah ku dhacay waxay ugu dhaceen waxa weeyaan cadeymaha ayaa ahaa kuwa aad iyo aad u ballaaran oon dhinacna loo dhaafi karin maxaa kamid ah cadeymahan waxaa kamid ah in adduunyada markii hore waxaa la aaminsanay in adduunka uu weligiiba uu soo jiray soo jiritaanka uu weligii soo jiray uu daa'iman azali uu ahaa ilaa weligii uu soo jiray in badanna ma aragtay xataa culimada saynisku ay ku doodi jireen iyaga oo atheismku markii uu soo baxayna ay sidaas odhan jireen xataa dood waxaa jirta 1948 ka dhex dhacday Bertrand Russell nin la odhan jiray oo atheist ahaa iyo nin Cobblestone la odhan jiray oo isaguna philosopher ahaa oo Christian ahaa labadoodaasi dood baa dhex martay xilligaasi aad uma aysan soo shaabixin in aragtidan Big Bang markaa waxaa dhacday in uu doodaasi uu idhaahdo ereygii caanka ahaa ee uu odhan jiray uu yidhi the universe is just is adduunyadu way jirtaa way iska jirtaa waana hadal dee waxaan naqaano intuu inoo sheegay inay jirto wayna ognahay markaas wuxuu yidhi way iska jirtaa isagoo sidoo kale sheegay inay yani ilaa weligeed ay soo jireen tahay xilligaana cadaymo sidaas shaa'ic uma aysan ahayn aragtidan in adduunyadu ay bilow lahayd marka waxa si fudud baabiyay aragtidan jiritaanka adduunkeed inuu adduunku weligii soo jiray waxaa tirtiray sayniska oo inoo sugay observationiska iyo waaqicaasi uu ka turjumayaa iyo baaritaano saynisyada la sameeyay lagu ogaaday in adduunyadu ay leedahay bilow ayna ahayn mid weligeed soo jirtay aragtidaana waxaa la yiraahdaa Big Bang theory baa la yiraahdaa waana aragti xataa mulxidiinta ugu waaweyn ay maanta rumaysan yihiin Lawrence Krauss oo kale universe from nothing page-ka shanaad waxa uu leeyahay all evidence strongly ay imika yani dhammaan cadeymaha dhan waxay si xoogan imika u taageeraan aragtida Big Bang theory oo iyaduna ina sheegaysa maxay waxay inoo sheegaysaa in adduunyadu ay ahayd bilow kana duwan tii imika aynu ka hadlaynay cagsiga ahayd in adduunyadu weligeed soo jirtay isagu muxuu aaminsan yahay universe from nothing waa adduunyo cadam ka timid isagoo dabcan adeegsanaya quantum fluctuations waxa uu la baxay yani wadadiisa goonidu iska samaystay wax ma aragtay cadeymo sayniseed qofka haduuna keenin uu ma aragtay idhaahdo sidan baa dhacdana ma mudna in loo jawaabo haddaba intaa haddii aynu usii guda dhaadhacno oo aynu aragtidan aynu ka hadlayno ma aragtay universe ama la dhahdo Big Bang-ka static universe ka saartay waxyaabaha observation-ka ah ee ay wadatay waxa kamid ahaa in 1929 markii la joogay dabcan buugga Brief History of Time baad ka heli kartaan macluumaadka aan imika idin sheegayo ninka Edwin Hubble la yiraahdo ayaa Hubble telescope isagoo dabcan adeegsanaya telescope-kiisa waxa uu arkayay in xidigaha ay sii fogaanayaan fogaanshaha ay iyagu sii kala fogaanayaan waxa ay geysatay ama ma aragtay ay ku dhalisay in mar haddii ay kala fogaanayaan in uu adduunyadu ay tahay mid sii kala durkaysa haddii waqtiga dib loo celiyana la gaari karo heer ay isku soo dhow yihiin heer ay xataa gaadhaan inay hal isku noqdaan ay isku urursan yihiin oo noqdo qura ay ka wada bilaabmaan waa sidii haddii maaragtay bb aad soo qaado aad laba dhinac aad wax kaga kala soorto dhinacna aad sawirkaaga dhigto dhinacna sawirka xaaskaaga nidhaahna aad dhigto kadib aad afuufto markaad afuuftay bb-du sii weynaato waxaa dhacaya in spacekii idinka idin dhaxeeyay uu sii kala durko maadaama uu maaskii shaygan uu sii korayo so markaad sii afuufto bb-dii maxaa ku dhacaya waxa sii kala fogaanaya laftigeeda labadii dhibcood halkii aad ku kala qortay so sidaas la mid ah wuxuu arkay markaa isagoo telescope-kiisa adeegsanaya in
ay xidiguhu ay sii kala fogfogaanayaan marba marka dib loo soo celiyana ay waqti ahaan ka turjumi karto inay isku soo dhawaayeen. haddii ay isku soo dhawaayeenna waxaa dhici karta inay meel ka wada bilaabmeen oo ay isku wada xidhnaayeen. So waa observation taasoo runtii wax badan ka bedashay sayniska xilligaasi. xilligaa dabadeedna waxaa laga sii daalacday in la gudagalo oo la baadho universekii iyada oo laga tegayo aragtida ahayd inuu static yahay mid weligii soo jireen ah, lana tegayo in uu shaygan yahay shay bilow yeelan karaya. marka waxaa la sameeyey observations kale iyo baadhitaano kale kuwaas oo iyaguna ma aragtay sii proof gareeya amaba sii caddeeyey arrintan aynu ka hadlayno oo ah big bang theory-gaasi. marka haddaba waxaa jirta haddaba waxyaabaha ka mid ahaa ama waxyaabaha uu lagu ogaaday aragtidan ay ka leeyihiin culamada physicsku waxaa ka mid ah haddii aan idiin soo qaato oo yacni eega imika ahaan waxaynu nihi waa unified theory oo waa theory lagu wada midoobay oo adduunyada culamada physics-ka ee jooga badankoogu xataa waaniga idin kii ugu mulxidsanaa ayaan idin sheegaya Lawrence Krauss laftigiisu waa uu rumaysan yahay, wuxuuna rumaysan yahay inay tahay mid cadeymo badan wadata. ilxaadkiina xilligaasi waxaa la rumaysnaa xataa xilliyadaasi aadka loo rumaysnaa ay ka mid ahayd in uu adduunyada weligeed jirtay oo difaac ay ku gaban jireen. oo runtii waa inaga nidhi labada qof ee midna sheeganaya theist iyo atheist labaduba waaqican ayay wax ka sheegayaan. marka keeba saxda u dhow haynu investigate garayno universe iyo adduunyadana waa jiritaan ka markhaati kacay labadooda keeba uu ka run sheegay labadooda keeba uu ka run sheegay. waxaa jirta haddaba in xilliyadaasi laftigooda xeerka la dhahdo second law of thermodynamics oo ah xeer ka mid a xeerasha hiidka ama kulka waxa uu leeyahay xeerkaasi wuxu uu sidoo kale uu inoo tilmaamay waxaa la dhahdaa entropy-gan waa la dhahdaa law of entropy-gan. marka close system haddii la joogo sida universe-kan oo kale nidaam yacni xidhan oo sida universe-kan oo kale waxaa dhacda haddii Paul Davies oo kale buuggiisa la dhahdo God and the New Physics page 11 waxa uu leeyahay isagoo ka hadlaya xeerka second law of thermodynamics. second law of thermodynamics waa xeer ka mid a xeerasha daaqada ama energy-ga laws of energy-ga. xeerka koowaad wuxuu ahaa energy can neither be created nor destroyed, kani waa second law waa xeerkii labaad. xeerkaa labaadi waxa uu sheegayaa waa haddii tusaale haddii aan idin siiyo koob kululoo biyo ah haddii aan qolkaygaasi dhex dhigo, qolkaygana uu leeyahay room temperature-kayguna ay tahay 24 ama qolkayga kulkiisu uu yahay 24 heerkulka kan uu taagan yahay shaaxaasina uu yahay 60 aan idhaahdo degree Celsius. maxaa ugu dambeyn dhacaysa in haddii aan halkaa kaga tago heatkani halkan uu ku urursan yahay baa uu tagayaa uu ka tagayaa wuxuuna aadayaa hareerihii ka qaboobaa. maxaa loo dan leeyahay in ugu dambeyn isleeg la gaadho equilibrium, heer ay simaan qolkan kulka ku jira iyo koobkan kulka ku jira heer ay noqdaan kuwo siman oo isleeg yacni qiyaas ahaan isleeg. so koobkii maxaa ku dhici doona 2 saac iyo 5 saac kadib markaad usoo noqoto kolba intaad ka maqnaato ugu dambeyn waxaad usoo noqon isaga oo ka qabowaaday meeshii uu ku jiray ee ahayd qolkii. haddii laakiin isla koobkaa shaaxa oo qabow angeliyo foornada maxaa dhacaya heatkii surroundingka isaga ku haraaraysnaa ayaa ka badan ka koobkan aan meeshan kulul dhex geliyey. marka ugu dambeyn maxaa dhici isaga ayaa kululaan si uu ula qabsado uu tira ahaan usoo gaari karo xaddigii kul ee meeshan environment-gan iyo deegaankan uu ku dhex joogo. so kulku muxuu markaa ku socdaa wuxuu ku socdaa inuu hadhow ugu dambeyn uu simo oo la gaadho meel equilibrium. haddaba waxaa dhacaysa uu ka sheekeynayaa xeerkan markaa wuxuu inoo tilmaamayaa oo uu 2 meelba ka saarayaa in adduunyadu ay ahayd mid weligeed soo jirtay. adduunyadu weligeed inaanay soo jirin ayaa uu ka markhaati kacaya this law or second law of thermodynamics. Paul Davies God and the New Physics wuxuu leeyahay page 11 universe-ka oo yacni systemkiisu uu limited yahay haddii aynu isbedelka uu ku socday entropy-ga ah oo ugu dambeyn uu kaga tegay yacni nidaamka iyo habaysanka uu isku habaysan yahay to chaos iyo burbur iyo uu ku socdo qaabkaasi uu u socdo ee uu order uu ka tegayo oo uu tegayo nidaam burbureed yacni entropy-gii buu ka hadlaya shaygii uu nidaamka iyo systemkaas isku habaysan
ee uu tagayo meel burbura oo kala daadaadsan waxa finally reach thermal equilibrium oo ugu dambeyn gaadhayo intaan idin sheegayay heer uu kulku isleekaado wuxuu leeyahay then that directly leads to two things taasi waxay dhalinaysaa laba shay labada shay koo waxa weeyaan universe will suffer thermal death yani in universe-ku marka buuggiis waaba kasoo koobtay intan universe-ku inuu ugu dambeyn uu ku dhici doono mawt xaraari ama dhimasho thermal death ah inuu universe-ku uu gaari doono ayaa ka dhalan karta ta kale ka dhalan karti waxa weeyaan oo natiijadan ay sheegayso second of thermodynamics waxa weeyaan universe cannot be eternal in aanu jiri karin ama universe-kii koonku aanu noqon karin mid eternal oo weligii soo jiray marka haddii ay soo jir lahayd adduunyadu ay ahaan lahayd mid soo jireen ah ilaa weligeed soo jireena maxaa dhici lahaa buu leeyahay xilli hore ayaa uu gaari lahaa thermal equilibrium oo xilli hore ayaa uu universe-ku uu noqon lahaa mid gaadhay mawt xaraariga markaa wuxuu leeyahay bottom line hadalkoon isku soo koobo waxa weeyaan baa uu leeyahay isagoo universe is not eternal isagoo cuskanaya maxay yani adduunyadu ma aha mid eternal oo weligeed soo jireen ah muxuu u cuskaday arrintaasi oo uu markhaati uga dhigtay wuxuu markhaati uga dhigtay second law of thermodynamics waxaa jirta laftigiisu ninka la yidhaahdo Barry Parker oo retired professor oo astrophysics-ka ah Idaho State University marka wuxuu ka sheekeynaya isaguna second law of thermodynamics waxa uu leeyahay tells us that the universe and time had a beginning waxay noo sheegaysaa in kownka iyo waqtigu ay lahaayeen bilow baa uu leeyahay if they were eternal weligood hadday ahaayeen kuwa jirana heat transferki ama isgudubkaasi kulku uu sameynaya would have already stopped mid joogsata ayaa ay noqon lahayd long time xilli horeba haddii ay joogsatana oo yani haddii lama arkeen buu ku leeyahay mawt xaraari marka uu dhaco ama thermal death lama arkeen objects like sun waxyaabo kulkulul sida cid oo kale dee inooma jiraan iyo xidigahaasi sidoo kale waxyaabo qabow sida dayaxa everything wax walbo adduunka iyo universe-ka joogana lantaha waa saas buu ku gabagaboobi lahaa buu leeyahay yani waxyaabahan eega maanta qaarna waa kulayl qaarna waxa weeyaan ma kulula meeshaasi kulul buu kulku ka imanaya meesha uu ku yaryahay buuna tegayaa taas baana reactionadii iyo falgaladii oo dhan saamaxaysa ugu dambeynna inaa uu maaragtay energy-ga ay noqoto mid motion oo socoto oo had iyo jeerba isbedbedel iyo gudub ku jirta ah taasina si jirteenkii nolosha iyo wax badan baa ku xidhan marka isagoo buuggiisaasi oo lasoo turjumo la dhaha asafar fi zamani alkowni pagkiisa 163 ilaa 164 ayaa uu hadalkan ku leeyahay in haddii uu adduunyadu in second law of thermodynamics ay noo sheegaysa in adduunyadu ay ahayd mid bilow leh ayna ahayn mid weligeed soo jirtay haddii ay ahaan lahayd mid weligeed soo jirtayna inayna weligeed soo jirin waxaa ka markhaati kacaya inaynu arkayno xidig kulul iyo ceed kulul oo iftiimaysa sidoo kale marka haddaba xilligaasi waxyaabaha jiray waxaa ka mid ahaa second law of thermodynamics oo iminka aynu faqidaadiisii aynu ku jirno oo ka markhaati kacay in adduunyadu ay tahay mid bilow lahayd oo aan ahayn mid eternal sidoo kalena aan ahayn adduunyo intuu big bang ku dhaco big crunches uu ku dhacayay oo isbedbedel kusoo jirtay oo ma aragtay kolla isku soo ururaysay kolla soo aasaasmaysay iyo big bang kasoo bilaabmaysay labadaaba waa uu ka saarayaa meesha static iyo cyclical universe haddaba aragtidan big bang theory markay soo baxday iyadoo observational evidence-keeda haddii aan ta saddexaad ku daro waxa weeyaan microwave background radiation-kan oo ahaa shucaacii iyo wixii ka dhashay qaraxan inta aan la arag waa lasii saadaaliyey inaa uu jiri karo oo la detect garayn karo haddaba xilligaasi waxay noqotay mid ruuxda mulxidiinta oo xataa kuwii skeptigiska ahaayee weli waxooga aan kusii degdegsanaa arrintan waxa ay faraha kala baxeen oo ay ka laabteen aragtida ah eternal universe adduunyo weligeed soo jirtay waxay faraha ka laabteen markii microwave background radiation-ka la helay sida uu leeyahay Robert Chastro Guard and the Astronomers page 15 wuxuu leeyahay the cosmic microwave radiation ugu dambeyn waxa uu ka saaray meesha in alla intii remaining skepticskii intii hadhanayd mushakikiinta ahayd weli ku yar dhaganayd in adduunyadu ay tahay mid weligeed soo jireena waxa ay iyaguna ku quus qaateen buu leeyahay markii la ogaaday microwave background radiation oo isaguna ahaa shucaaca ka dhashay
qaraxii weynaa ee Big Bang Theory-ga la lahaa. marka haddaba xilligaasi wax badan atheism-ka way ruxday. markii ay ruxdeen waxyaabaha ay yidhaahdeen waxyaabo badan oo runtii waxa ka mid ahaa eega William Rowe buuggiisa la yidhaahdo Cosmological Argument page 115 wuxuu soo gaadhay waa inaan qiranaa buu yidhi that the Big Bang had added a new weight inay culays badan ay kusoo kordhisay jiritaanka of what could be a creator, inay yani miisaankii culayska ay u badisay xaggii dadkii diinta oo ahaa jiritaanka creator ama abuure jiritaankii ayaa ay aad u xoojisay baa uu leeyahay ninkaasi. sidoo kale Stephen Weinberg isaguna sidaas la mid ah ayaa uu leeyahay Brief History of Time. Stephen Hawking wuxuu leeyahay aragtidan Big Bang Theory waa ama aan idhaahdo adduunyadu inay aragtidan Big Bang Theory waxa ay had iyo jeer ay ka markhaati kacaysaa arrin ay diimuhu weligoodba soo difaaciyeen, taasoo ahayd in adduunyadu ay bilow leedahay. isla Anthony Flew inta aanu dhiman ninkii oo atheist-ka ahaan jiray markii dambena theist-ka noqday waxa uu leeyahay hadalkaa u dhow oo ah in ay tahay inaan isku qirno in taasi ay tahay hadalkii Thomas Aquinas nin philosopher oo Christian ayuu ahaa oo ma aragtay waxyaabo lagu doodo waxyaabo ay ku doodaan kuwa masiixiyiinta philosopheradii ay atheist-ka kula doodaan iyo arguments iyo xujaj soo bandhigi jiray. marka aragtidaas uu ninkaas xilli hore inaga horeeyay haystay oo adduunyada inay bilow leedahay iyo abuuro leedahay ayaa ay caddaysay tan Big Bang Theory-ga. marka Big Bang Theory-gu waxa la wixii aynu ka soo hadalnay hore ay u aaminsanaan jireen ee ahaa in adduunyada ay tahay mid eternal oo weligeed soo jirtay ayaa ay meesha ka saartay. waxa intaas dheer aragtidaasi Big Bang Theory-ga in ay u ruuxayso saddexdii option ee aynu soo sheegnay ee ahayd in adduunyadu tahay mid jirta, mid iyadu is abuurtay ama mid la abuuray. waxay meesha ka saaraysaa in adduunyadu tahay mid daa'im jirta. logic iyo caqliga wuxuu ka saaray in adduunyadu ahayd mid iyadu is abuurtay. waxa inoo soo hadhay in ay adduunyadu ay tahay mid la abuuray. la abuuray xataa aniga oon odhan waxaad ka fahmi kartaa hadallada ay iyagu leeyihiin. adduunyadan isla Big Bang-kaasi marka uu dhacay ma ahayn un mid ku dhacay ama iska dhacay un ma ahayn. waxa uu ahaa mid well calculated sida iyagu leeyihiin, mid aad u xisaabsan. Stephen Hawking wuxuu leeyahay bookgiisa Brief History wuxuu leeyahay page 63 if the rate of expansion 1 second after the Big Bang had been smaller by even 1 part in hundreds of thousands millions the universe would have collapsed before it ever reached its present size. adduunyada expansionka iyo maaragtay kala baxa uu sameynayay hal second kadib qaraxan haddii uu ahaan lahaa mid aad yacni u yar secondka oo intaasoo milyan loo qaybiyey. halka daqiiqo haddaan ku idhaahdo 3 u qaybi imse u qaybsamaysaa 20 second. haddaan ku idhaahdo halka daqiiqo 60 u qaybina min hal second. halkii second haddaan ku idhaahdo 1 milyan u qaybi wala xudud yacni waqti aan la suuraysan karin baa kaaga soo baxay. haddaba haddii uu intaa yar oo smaller uu ahaan lahaa intaa yaroon in ka yar uu kala baxa uu sameynayo intaa yaroon ahaan lahaa 1 second after the Big Bang maxaa dhici lahayd buu ku leeyahay recollapse before it reached its present size. intuuna adduunyadu intaan ay leegtahay maanta ayna soo gaadhin dib ayay iskugu burburi lahayd. sidoo kale Paul Davies waxa uu leeyahay buuggiisa la yidhaahdo Super Force the search for a grand unified theory of nature page 184 wuxuu leeyahay the Big Bang is well calculated. Big Bang waxay ahayd ama dhacdadaasi xadadkaasi mid aad u xisaabsan. su-aashu waxa weeyaan yaa xisaabiyey? waa it begs the question. waxa weeyaan waa mid iyadu laftigeeda su-aal keensanaysa. wuu xisaabsanaa wuxuuna u xisaabsanaa heer loogu talagalay. dabcan yaa ugu talagalay, yaa xisaabiyey, waa mid ka dhalanaysa isla taa ay keenayaan. intaa un maahay adduunyadan oo dhan baa wada ah mid qiyaas ku wada socota. haddii la yidhaahdo the electromagnetic force waxaan idin soo qaadanaya yani nin kale oo la yidhaahdo Max Tegmark Parallel Universe book la yidhaahdo ayaa uu qoray in Science and Ultimate Reality from Quantum to Cosmos. bookgiisaasi waxa uu leeyahay if the electromagnetic force were weaker or stronger only 4% of what it is intaa ay tahay hadday 4% boqolkiiba 4 haddii ay awoodoodu ay intaa un ama ka kormar lahayd ama ka hoosmar lahayd the sun would explode upon formation. markii ay saa u samaysatay cadceed waxay noqon lahayd mid isku qaraxda. cadceeduna maxay tahay? waxay tahay
iftiinka cadceeddu muxuu yahay kan nolosha dhan ee dhulkeena suurtageliya. wuxuu u suurtagelisaa dhirta inay iskeed cuntada ula soo baxdo. noolaha kaloo dhanna waa maxay? cuntadii ma samaystay, ama dhirtu cuna ama wax dhirta cuna ayuu cuna. dhir haddii la waayana noole ma jirayo. so markaa dhirtiina maxay ka samaysataa cuntada? lightka iyo iftiinka cadceedda ka imanaya. so bilowgii weed cadceeddaasi way isku baabi'i lahayd, iskeed bay iskugu burburi lahayd haddii 4% ay electromagnetic forceskaasi ay ahaan lahayd kuwo 4% ama xagga xooga u yar badan ama xagga dacfiga ee liidashada u yar badan. yacni haddii intaa loogu talagalay ay dhinac u dhaafi lahaayeen waxay noqon lahayd mid maaragtay in cadceeddii iyo noloshiiba la waayo. Michael Danton buuggiisa Nature's Destiny pageka 12 iyo pageka 12 iyo pageka 13 wuxuu ku leeyahay if these 4 forces did not have its constant, haddii 4 awoodeed, markaa uu ka hadlayaa 4 fundamental forceskaasi, nuclearka, weak and strong nuclear forceskaasi, electromagnetic iyo gravitationka, wuxuu leeyahay haddii ayna ahayn sidaa ay imika yihiin, ay ku sugan yihiin, xaddiga ay ku sugan yihiin as exactly as they are, then there would be no stars, no life. nololna jiri mayso, xidigana jiri maayaan. cadceeddeenuna waa mid ka mid a xidigaha weeye. marka maxaan intaasoo dhan uga dan leeyahay? waxaan uga dan leeyahay in waxaan soo baxay dabcan qarax waynu naqaanaa, big bang baa dhacay, qarax waynu naqaanaa. qarax waa waxa maalin walba ka dhaca golalkaas aynu kala naqaano. dhulkeenaasi Soomaaliya uu ka dhaca. qarax wax ma dhiso, mana ma aragtay nidaam kama dhasho qarax. qarax waa waxa ugu daran ee nidaam dhaliyo. nidaam ma dhalin karo qarax. so haddii maanta aan garage bira dhigo oo yani ma inaga suurada Sheekh Cumar, oo haddii maanta aan nidhaahno laptopkan aad haysato kale si aan usoo saarno, han tagna garashkaasi miinooyin intooyna ku wada xidhno, caagagiisan iyo laptopkan si uu kanoo kale inoogu soo baxo, waxa la wixii uu ka samaysnaayo furfurintoona meesha geyno, haynu qarxino banaanka uga baxno, kadib markay nug idhaahdana haynu tagno doonano laptop cusub. inagama suuroodo. sababta inay nagu suuroodo waxa weeyaan qarax waynu naqaanaa. haddaba sidee buu qarax nidaam uga dhashaa? waa mucjizada weyn ee aynu hadda ka hadlayno. nidaam uun kama dhalan, waxa ka dhashay nidaam muxadad ah oo daqiiq ah oo iyaguba u bixiyeen fine tuning. ega Paul Davies oo kale waa mulxid, waa fisyaa'i, yani wuxuu sheegay agnostic inuu yahay. wuxuu ku sheegay waa sida midi seefteed afkeed ay taagan tahay adduunyada iyo samaysankeeda iyo ma aragtay qaab dhismeedkan ay u socotaay uu yahay midi afkeed aad u yuban yahay. si fududna dhinacan waad ugu galban kartaa, dhinacan waad ugu galban kartaa. marka haddii dhinacan awoodahaas oo dhan gravity-gu hadday in yar inteedaasi ka xoog badato, wax badan baa kharimaya. hadday inteeda ka liidatana wax badan baa kharimaya. oo gravitationkaasi dhulkeena qura haddii uu iska bedelo, oo maanta haddii uu weaker uu noqdo, intaa uu ka liito, maxaa dhacaya? fadkeenana wuxuu raacayaa banaanka iyo atmosphere-kaabuu banaanka u baxayaa, space-kaabuu aadayaa fadkeenan iyo waxyaabahan oo dhan. sidoo kale dayixiina aad buu usii fogaani doonaa. dayixu hadduu fogaadana maxaa dhaca? dhulka mawjadihii tsunami iyo waxyaaba badan baa samaysma. so waxay isugu xidhan yihiin, gravity ahaan bay isugu xidhan yihiin. intaa hadduu dhulka markaa weak ka yar noqdo, intaa ay ka liito, masiibooyin baa dhacaya, dhulkana nololi kama jirayso. haddii uu intaa ka yar xoog batana, masiibooyin kala dhacaya, dhagaxaan buu inagu soo jiidanaya. yacni dhulkeenu maxaa uu yaalaa? meel xasaas u yaalaa. waxa weeyaan planetka saddexaad ee ka mid a majmuuca shamsiya ama solar systemka. waxaa inaga horeeya Mercury, Venus baa inaga horeeya. inagu 3 baynu nahay. kaalintaas saddexaad haddaynaynu ahaan lahayn oo cadceedda u yar dhawaan lahayn oo halka Mercury taagnaan lahayn, nolol ma suurta gashay, waynu solmi lahayn. haddaynu ahaan lahayn ka inaga dambeeya Mars oo kaliya haddaynu ahaan lahayn, nolol kama jirto. so iyaga baraf baana inagu badan lahaa. innagana dhulkeenu muxuu yahay mid muctadila, geeda ay ka bixi karaan, cimiladii ay tahay mid la dul qaadan karo, seasonal changes, isbedelo xilliyada fiican leh, waxaasoo dhan isu kaashatay. bal xataa kaalinta uu ku yaalo ee ah inuu 3 noqdo oo uu Jupiter intaas u jiraayay, waxay saamaxaysaa in dhagaxaan badan oo inagu soo dhici lahaa. dinosauri maxaa tirtire baa la dhahdaa? waxaa tirtire dhagax weyn oo kusoo dhacay. markii surface-ka la eegay Jupiter, waxaa la arkay dhagaxaan waaweyn oo isaga ku dhacay oo ma aragtay qaarkood dhulka ay leegyihiin. Jupiter waxaa lagu qiyaasaa inuu qaadi karo 318 dhulkeena ah. dhagaxaan waaweyn oo dhulkeena la leeg baa Jupiter ku dhacay oo dalool weyn u sameeyo dushiisa ka muuqda. dhagaxaantaasi inaga inagu dhici kareen. maxaa saamaxdaa cufisjiidadkiisa weyni inuu isagu soo jiito dhagaxaantii wixii dhulka kusoo dhici lahaa. halkaa uu yaalana waa meel xasaasi ah oo saamaxaysa inaynu inagu noolaano. marka halkaynu naalnana waa xasaasi. noloshii iyo constant, waxaa loo bixiyay universal constant baa la dhahdaa. waa hab joogto ah oo nidaam ah oo is haysta
oo dhinacna loo dhaafi karin. Fine tune xataa waxay ka timid mawjada. Haddii aan rabo mawjada BBC da inaan geeyo FM ta maxaa sameynaya waa inaan irbada ku beegaa bartaas 87.5 waa in halkan ku beegaa tusaalahan. haddii aan 87.7 tago maxaa dhacaya idaacaddii waan ka baxay. haddii aan 87.4 tagana idaacaddii waan ka baxay. labada jeerba waan ka baxay. laakiin 87.5 oo meesha kaliya ku dhageysan karayo BBC. range-kan ay universe-ka iyo waxyaabihiisa ku sugan yihiinna waa range kaliya nololi ay ku suura gali karayso. iyaga ayaana ka markhaati kacaya. Paul Davies God and the New Physics page 198 wuxuu leeyahay there is agreement at large. waxa si weyn la isku raacsan yahay among the physicists and cosmologists dadka diraaseeya universe-ka adduunyada iyo bilowgeeda iyo fisikyaanaduba that the universe is finely tuned for life. in adduunyadu ay tahay ama universe-ka koonku mid aad u xadidan oo ma aragtay finely tuned sida mawjadaan idin sheegay oo kale noloshiisii lagu beegay heer ay nololi suurta gali karto in irbadiisa lagu beegay. labada dhinac loo dhaafo irbadaasna loo dhaafiya ay tahay mid ayna nololi ka suurta galin. So this is وهذا يسوي ليه Brief History of Time page 64 where Stephen Hawking ليه the remarkable fact is that the values of these numbers seem to have been very finely adjusted to make possible for the development of life. وكشيكين يسوينا أنت installation الذي وكورنتي كومن wax walba oo universe keenani xataa oxygen taasi 21% bay ka tahay atmosphere keena. haddii ay in yar dhaafto oo ay xadigeeda si ay dhaafto waxa badanaya gubashada iyo xaraa'iqda ayaa badanaya oo oxygen waxa weeye waa flammable waa gaasyada gubta weeyaan ee laga ilaaliyo wax lagu wadwato wax dab iyo waxa lagu wadwato. so oxygen taas haday atmosphere keena ku badato dabka kordhaya geedaha iyo waxaan oo dhan baa wada gubanaya nolosha dhan baa way baaba'aysaa iyo dab baa baabin doona. haday inteeda ka yaraato xataa kalluunada biyaha hoostooda ku jira ayaa oxygen la'aan u dhiman doona. so noloshu waxay ku taagan tahay heerka xasaasiga isagu leeyahay oo wuxuu leeyahay waxa la waxaasoo aynu ka soo wada hadalnay tirana runtii laguma koobi karayo. anigu baa waqtiga iska soo koobsanaya idin soo koobi mooyaane haddaan maanta idhaahdo fine tune kaas oo dhan baynu gudagalaynaa oo aynu ka hadlaynaa nolosheena iyo raqmi kasta. horta noolaha intaynanuba ka hadalba nooluhu waa wax kale jirkaaga samayskiisaas next time markaynu evolution ka hadlaynaynu ka hadli doono yacni isagu waa haba sheeginba. laakiin adduunyadan inagu xeeran ee aynu ka hadlayno haddaynu aad usii wada dhex galno mid walba tusaale idinka siiyo waxay noqonaysaa heer aan laga bixi karin. mid walbana midba midka ka dambeeyo tacajub iyo layaab kugu sii dhalin doona. marka isagu waxaasoo dhan isagoo kasoo hadlay wuxuu leeyahay valueskan iyo raqamyadan iyo these numbers seem to have been very finely adjusted. waa kuwo si khafiif ah ee yar yani heerka xasaasiga ah lagu adjust gareeyo lagu beegay. maxaana loogu beegay to make possible the development of life say u suurta geliyaan inay nololi samaysanto. waa Stephen Hawking baa hadalkaasi leh. intaas waxa ka daran oo uu leeyahay oo aan jecelahay inaan qaybtan kusoo gabagabeeyo oo adduunyadan aynu ka hadalnay inay abuuran tahay ee aynu sugnay in ma aragtay ay tahay mid finely tuned waxa la xaso ay leeyihiin adjusted waa la sigay sidan baa loo dhigay numberkeeda waa la xadiday. it begs the question waa mid iyaduna su'aal keensanayso ah yaa dhigay waa is dhigay haddii tira maxaad ku dhacaysaa qaladkii koowaad aynu ka soo hadalnay ahaa wuu is abuuradii weeyaan waa self contradiction waa mid iyadu isdiidaysa. weligii uu jirayna waa inaga soo gabagabaynay aragtidaasi. iminka sidan buu u habaysan yahay waa loo habeeyay baa tiri de waa loo habeeyay yaa u habeeyay bay kaa rabtaa isaga isku habeeyana ma odhan kartid maxaad ku dhacaysaa qaladkii koowaad aynu ka hadalnay ee ahaa self contradictionkii ee ahaa in waan is dhaladii oo kale aniga is dhaladii oo ahaa mana jiri kartid si aad u jirto waa inaad jiritaanka ka maqnaada yani si aad isku jirsiisana waa adigu jirtaa si aad yani ficilkii jirsiintii aad u samayso. labaduna waa laba shay isdiidayaan labadaba run noqon karin. Brief History of Time page 64 laftigiisa wuxuu ku sii leeyahay it would be very difficult to explain. wuxuu sii raacinayaa way adag tahay in la qeexo la sharaxo why the universe should have begun in just this way. sabab moo adduunyadu ay sidan ugu bilaabantay in la qeexayo la sharxi way adag tahay. sida kaliya lagu sharxi karaa wuxuu leeyahay except as the act of God. waa hadal ka yimiday akbar al-mulhidin waa page 64 buu ku leeyahay except sida kaliya lagu qeexi karo lagu sharxi karo lagu fahmi karo adduunyadan iyo noloshu waxa ay sidan u tahay nambaradan iyo waxaan oo dhan ay u sugan yihiin oo maxay waa by the act of God ficilka ilaah who intended kaasoo maxay rabay to create
beings like us kuwo sideeno kala ah inaa uu sameeyo yani hadalkaasi waa hadal cajiiba like us buu yidhi inagoo kale inagu maxaynu nahay inagu waxaynu nahay noolaha keliya ee maanta ka fikiraya ee leh rabbana maa khalaqta hada baadila noolo kale maanta male oo ma aragtay intay halkaas soo fadhiistaan yeeyada iyo dacawayaashu intay isku tagaan ay iskuul bartaan fine tune waxba kama yaqaanaan big bang waxba kama yaqaanaan waxaasoo dhan waxba kama yaqaanaan shaqadooda maaha ilaahay muxuu sameeyey iyaga acdaa kulla shayin khalqahu uma hada mid walba qariiso iyo hadigiisa u goonidaabuu ku socdaa kuwa wax isweydiiye su-aalo adduunyada la soo galay waayo waa bini aadankan marka isaguna aad buuba halka uga jawaabo wuxuu yidhi ilaah rabay to create beings like us inagoo kale inuu sameeyo inagoo kale maxaynu nahay kuwa isweydiinaya maanta halkan ugu shirsan inaynu arrintaasi aynu ka nimaado adduunyada maa la abuuray iyo lama abuurin iyo theism atheist ideological dagaalada ideologicalka waxay ka dhaxaysaa waa dad unbay ka dhaxaysaa ay kama dhaxayso xayawaan marka waxaynu ka hadalnay caqliga markaynu u noqono baynu nidhi ama haynu nidhaahno adduunyada iyo universka markaynu ka hadlayno waa la abuuray weligeed bay jirtay iyo iyadaa is abuurtay dhinacna looma dhaafo mid waa muxaal caqliyan oo iyadaa is abuurtay wax caqliya ma aha am khuliqu min gayri shayin am hum lkhaaliquun marka wax taasi caqliya ma aha waxaynu nidhi sidoo kale eternal inuuna ahayna scienska ayaa inoo sheegay iyo observational datada aynu haysano ee inoo muuqata ugu dambeynna maxaa inoo soo hadhay waxallo wixii ay ku dhici lahaayeen it's finally adjusted sidan baa loo dejiyay numberkan waxaa lagu beegay meel xasaasiyo nolol ka suurta gasho waxaa loo mahiday oo loogu talagalay inay nolol suurta geliso wax lagu meermeeraystaba Stephen Hawking wuxuu inoogu soo gabagabeeyey sida keliya lagu fasiri karaya noloshana waa maxay buu yidhi iyo adduunyadan iyo numberadan iyo waxan oo dhan waa in la rumeeyo jiritaanka ilaah inuu waxaan yahay ficil ka imiday God ilaah kaasoo intended rabay inuu abuuro beings like us kuwa inaga oo kala ah inuu abuuro ayaa uu rabay intaas buu markaa inoogu soo gabagabeeyey Stephen Hawking waxyaabahan aynu ka soo hadalnay waxa ka dhalanaysa yani sifaadka soo socda oo ah inuu ilaahay yahay maadaama maaragtay egspace.com website-kaasi wuxuu leeyahay big bang sidoo kale Stephen Hawking brief history of time wuxuu leeyahay big bang mark the beginning of universe waxay ahayd ama ay sugtay bilowga universe-kiya kownka ayay big bang u ahayd maadaama bilowgay ahayd wuxuu ku leeyahay waxyaabaha soo bilaabmay waxaa ka mid ahaa space time and matter and energy all had beginning at the time of big bang labadaasi Stephen Hawking iyo space.com labadaba intaa bay leeyihiin maadaama intaasiba afartaasiba ay yihiin kuwa bilow leh waxaa ka dhalanaysa su-aashan ilaahay ma aha mid uu waqtigu xadido so waa timeless maadaama timeku uu yahay shay jirsamay oo xilligaa big bang soo jirsamay ilaahayna waxaynu nidhi waa ka abuuray ee dhacdadan saamaxay marka isagu ma aha mid uu waqti uu ku socdo marka muxuu yahay azali daa'im abadi baa uu yahay isagu waqtiga ka baxsan sidoo kale maxaa uuna ahayn ilaahay waxa uuna ahayn matter oo dhan xilligaabuu kasoo bilaabmay maadigan aad arkayso o dhan ay kugu xaraaraysan dhagaxaantaa iyo looxaantaasi marka ilaahay ma aha sanab dhammaan diin kastoo sanab sheegatana halkaabay ku baabaaday maxaa ka mid a kuwa dadka caabuda ka mid a ilaahay ma aha being iyo matter iyo maado ma aha inagna waxaynu ka samaysanahay waxyaabo ay ka mid yihiin maado iyo ruux baynu iskugu jirnaa so ilaahay maadi ma aha marka Jesus ma aha God maadaama Jesus ahaa maxay bini aadanna bilow uu lahaa uuna ku dhex abuuran yahay systemkan iyo universekan aynu sheegano afartaa ilaahay midna ma aha afartaas oo ahaa space time matter iyo energy marka ilaahay afartaa midna ma aha timeless maadaama yahayna waa weligii jira maadaama ma aragtay universe-ku uu mar aanu jirin una soo jirsamay haddana maxaa halkaa kaaga baxaysa inuu ilaahan aynu ka hadlayno uu yahay mid choice iyo iraado iyo ikhtiyaar leh oo xillibaa uu doonay in adduunyadu ay samaysanto xilligiina way samaysantay kun fa yakun sidoo kale maxaa halkaa inooga baxaya adduunyada iyo diraasadeedii aynu haddeer baranaynay waxaynu nidhi waa finely tuned waxaasoo nambaro oo wada xadidan ayaa ay ku salaysan tahay mid walba hadduu intaa yar nambarkiisa uga dhaafo nolol iyo adduunyadani kuma suurto galayso waxaynu ku ogaanay waxaasoo nambara waxaynu ku ogaanay intelligencekeena iyo maskaxdeena aynu adeegsanayna aynu baadhayno maskax intelligencekaasi waxa ay baadhay dee waxa abuuray waa intelligent yacni wixii si aynu u maskax badnaano
ayaa loo baahday inaynu baari karno. That's why Stephen Hawking uu leeyahay being like us inagu waxay nahay dad caaqila oo wax baari kara oo ma aragtay wax raadin kara caqli leh oo wax sababeeya. So caqli iyo maskax ayaa waxaan oo dhan aynu kula soo baxnay fine tune kaasi in adduunyadu big bang ay ka timiday observational evidence ka waxaas oo dhan maxaynu kula nimidnay caqligaas baynu kula nimidnay. Marka waa intelligence. marka isaguna muxuu yahay intelligent baa uu yahay waxa garashadiisii ay u baahan tahay caaqil waxa in la fahmaa ay u baahan tahay caaqil de in la sameeyana maxay u baahan tahay caaqil bay u baahan tahay. So ilaahay waa caliim cilmi leh waa ilaahay waxa weeyaan waa xakiim waa intelligent oo waxaan oo dhan ba muxuu u dhigay xikmad baa uu u dhigay waxaas oo dhan oo sifaata oo ilaahay ku tusinayay ee aynu haddeer ka soo hadalnay waxay u noqon karaan hal ilaah haddii aynu adeegsano falsafada Occam's razor oo kale يعني هل إله جريتان كيان عديه هدي يفسره يعني هدي عن عديه جريتان كإله سمين كرو حاسودا ده إيجا غفلا محن أباهنا هنا سيلا بين سي صدحية تكلم حكى لنا سئين لا هذا ولا بيه ولا صدحية والله ما يسبي كرامبا باور بين الشيء من وحيابا صفات كإلهي ولا يمدو أدينا كأبوري باور كاسي وحويان وباور unlimited لهين the moment أترى هذا باور كاسي حدود بيلا لهين محاكر لنا يا وحبا حددي إساقا كحوقوين وحاسنا محقوق باهين أو فسرية حددات أي لا هاي أوديسو مر هدي أي يدو حددان دهين محاكر لنا يسا يا حددي أو يان حددنين إلا أقدم بين لقاعدة ما تشوك سنيسو إلا لقاعدة إله كلي إسكي ووضا مدح بنان يعني هديان تسالحان إن راهنو قاعد A يا قاعد B باشرة أنا راهنو محا كلا ساري اللي بدود waxa kala kani waxa weeyaan waa power over all things waxa weeyaan waa qawiyun ala kulli shay wax kastaba oo ku xoog weyn yahay oo awoodiisu xad maray okay kan ma ka xoog weyn yahay so ay waxa la raahdaa infinite ka ciidamada maths kulli waa soo jeedaa xisaabta waxa la raahdaa wax kaste oo la barbar dhigo infinite waa zero yani hadii aan ku soo qaado tirooyin aan dhamaad lahayn on kiraado tira aan dhamaad lahayn waxaad ka jartaa 5 ama waxaad u geysaa 5 imsay noqonaysaa intii un bay sii haanaysaa waayo waxna kuma dari kartid waxna kama reebi kartid marka raqmi kasta oo la barbar dhigo tira aan xad lahayn maxay tahay ever bay tahay yani iyaga hadii 5 aan iraahdo 5 waxaad garab dhigtaa 5 milyan de waxay isdheerihiin intaas u dhaxaysa 5 waxaad garab dhigtaa 10 de xad baa jira oo 10 marka 10 waxay dheertahay 5 taas aan iraahno 5 waxaad garab dhigtaa 60 شنو كنت كابي ديرتو شنو كنت كامر كلا قاعد بس انت بس كو قاعد لكن شن واحد قرب بكتا ترى ان دماد لهين شن تاسي هي ايبر waxba isma dhaamaan ileen tiradan aan damaadka lahayn maxay shanta dheertahay waxa shanta dheertahay inta ay dheertahay maxay eberka inta dheertahay oo so eberkaasi iyadu waxba iskuma dhaamaan waa ogahay way idin ka fahmi way qaar way ku adkaan kartaa laakiin waa concept saasi lamida awoodda ilaahay aan xadidka lahayn ama awood aan xad lahayn markaynu ku hadlayno iyo wil iyo iraado aan xad lahayn hal bay noqon kartaa iyo labo ma noqon karto the moment at infinite ka wax garab dhigto maxaad sheegtay inuu xadidan yahay haddii aad tiraahdo wuu xadidan yahay yani haddaan kala gaar A iyo gaar B waa sidan oo maxaad ku kala saaraysaa hadii aan ku weydiiyo tira waa isku wada mid wax walba kana wax walba awooda kana wax walba uu kara kana wax walba maxaad ku kala saaraysaa waxba hadda tira de hal shay in baad laba jeer kala sheegtay waxa aan la kala saari karin waa hal shay baan kala bixi karin marka hal shay baad laba jeer ii soo celiso laba jeer ii kala waramaysa hadaa tira waxa ay ku kala duwan yihiin kan baa ka awood yar kan wuxuu uga awood yar yahay kan waa maxay waa inta aanu ahayn ilaah soo marka hadaba waxa diimuhu asalkoodii iyo deep rooted waxa ku wada ah diimuhu oo dhan tawxiidka ayaa ku wada ah iyo kalinimada ilaahay soo waxaad arkaysaa xataa hinduismka waa waqti waa dheereey waa soo gabagabeynaya diimaha xataa hinduismka ka mid tahay si kastoo u caabudo dhagaxaan iyo wax badan waxay haddana ugu dambeyn u saldhigataa hal ilaah masiixiyadu waa la mid yahuudiyadu waa la mid oo Deuteronomy 6:4 Musa calayhi salaam wuxuu ka yidhi bani Israa'iil ilaaheen iyo ilaahukum waahid ilaahayga iyo ilaahaynu waa mid buu ka yidhi Ciisa calayhi salaam isla Gospelska Mark 2:28 isla intaa buu ku celiyay oo ahayd in halka ilaah uu jiro oo reer bani Israa'iil oo ilaaheen iyo ilaahaygu waxa weeyaan mid nabi maxamed calayhi salaam wuxuu yidhi inama huwa ilaahu waahid wa hal ilaahu waxa weeyaan marka halka ilaah bay diimuhu u soo wada saldhigtaan ayna wada caabudaan asalka diinna maxay wada tahay wada tawxiidi ayaa ay diimuhu asal ahaan u wada yihiin
sida caadigana ma aragtid cid polytheism iyo ilaah badni difaacaysi xataa Zoroastrianismka ama majuusiyada iyadu waxay waa diin mathni ah oo labaale ah laba ilaahla ah imika laakiin asalkeedii waxay ahayd baa la dhahdaa iyaduna diin ah hal ilaah oo iyaduna tawxiidiya waayahay intaa baan kusoo gabagabaynayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh